kan iska riix, kan iska dhici, kan boob, kan dhac, kan dil ayagoo hoggaankiiya bay dabiicadihii dadka caadiga lahaayeen dhowr boqol oo sano ka hor bay leeyihiin ilaa yacni taas wax laga beddelana waxa weye wax badan oo inoo hagaagayaa ma jiraan. Hoggaanku waa inuu isbeddelaa, waa inuu la yimaadaa daacadnimo, waa inuu la yimaadaa cadaalad, waa inuu la yimaadaa dal jacayl, waa inuu la yimaadaa dadka inuu adeego. marka si kastoo wax loo wanaajiyo haddaan dadka mas-uuliyiinta ah oo maskaxda dadka u ah oo hoggaanka u ah aanay intaa la imaanin aysanna jirin in lagu aamino keliya maaha, waa inuu jiraa nidaam lagula xisaabtami karo oo bulshada hawsha u dhiibatay ay kula xisaabtami karaan. salaan ka bacdi waxaan rabaa inaan wax yar aniguna aan ku darsado inta walaaluhu yidhaahdeen oo ku saabsan su-aashii ruqya ina weydiisay. waxaan u malaynayaa dabcan hal jawaab oo keligeed saxan inaysan yeelan karin sida laga dhawaajiyba ay u baahan tahay meelo badan laga fiiriyo. laakiin hal meel oo aan rabo inaan ku tiiqtiiqsado waxay ahayd si aan u garanno waxa soomaaliya maanta xaaladeedu tahay dagaalkii sokeeye ka sokow kadib waxaan u baahanaa inaan ogaano xagee ka nimid markii hore. marka meeshii hore aan ka nimid waa sida hadda cabdirasaaq uu sheegahayay oo ah ilaa iyo boqolaal sano ka horreysay inaynu lahayn dhaqan reer guuraa ah oo haddii eebixunkadi leeyahay yaqaana ayagu mataqaanaa siday u wada dhaqmi lahaayeen ayadoon shuruucdan reer galbeedku inoo keenay waagii dambe aynaan shaqo ku lahayn qaab kale oo aynu u dhaqanno haddii dembi la galo haddii wax la isweydaarsanaya haddii wax la kala gadanayo iyo wixii lamida. asal ahaanna dhaqankeennu iyo hadda waqtigan casriga in badan oo kamid kaasuu ku salaysan yahay, laakiin waxaa barxay dhaqan aynaan shaqo ku lahayn, shuruuc aynaan shaqo ku lahayn iyo nidaam aan dadku intooda badani ay ku adag tahay inay fahmaan. laakiin taa macnaheedu maaha inaan la iswaafajin karin. anigu waxaan qabaa weli in la iswaafajin karo. haddaynu soo qaadano dadku waxay ku fiicnaan lahayn waxyaala concrete masaal concrete in loo sheego. waddanka Rwanda oo dhibaatayna ku wada dhacday waqti isku mid ah waxa weeye waddan cilladihiisaba ha lahaado oo hadda wax iska nadiifa boqolkiiba boqol waa yar yihiin, laakiin adduunka waxyaala meelaha laga sheekeeyo ayay ka mid yihiin oo dadka researchka iyo cilmi baarista ka shaqeeya ay baarayaan si ay ugu suurto gashay ayadoo intaas oo boqolaal kun oo qof lagu dilay waqti gaaban oo dad dictator weliba lagu tilmaami karo marka qaarkood ay madax ka yihiin, haddana waddankaasi dhaqaale ahaan iyo bulsho ahaan iyo maamul ahaan inuu saa u koro oo adduunka kasoo afrika oo dhan kasoo dhex baxo lagu tilmaamo waddamada ugu barwaaqo badan uguna horumar badan adduunka. dee sabab baa keentay. sababtu marka waxay tahay bulshada qaybaheeda kala duwan ayadoo mid walba mas-uuliyad gaara ay leedahay, haddana waxaa hoggaan u ah ciddii markaas hoggaanka u noqota ama nidaam siyaasi iyo dowladeed ha ku yimaadaan ama nidaam dhaqan ha ku yimaadaan. nidaamkaasi marka wuxuu noqonayaa brainkii maskaxdii hoggaaminaysay bulshadaasuu noqonayaa. maskaxdu marka haddii ay jiran tahay oo waxyaalihii aan kasoo sheekayno oo dhibaatooyinka haya dhaqamadii ahaa aysan bedeline ay koodii hore ku socdaan waxa weeye jirka intiisa kalama shaqaynayo. maskaxdu hadday halowsan tahay oo qariban tahay wadnuhu ma shaqaynayo, beerku ma shaqaynayo, luguhu ma shaqaynayaan, araggu ma shaqaynayo, maqalku wax shaqaynaya ma jiraan. aniga marka waxaan is leeyahay waxa ugu muhiimsan oo innaga ina ka khaldan oo intaasoo dhan ina ka khaldanaa gaar ahaan waqtiga dambe casri ah in maskaxda oo ah hoggaanka dalka marna inaanay wanaagsanayn oo ay dhaqankoodii hore aanay waxba ka bedelayn oo ahaa ku salaysnaa kan iska riix, kan iska dhici, kan boob, kan dhac, kan dil ayagoo hoggaankiiya bay dabiicadihii dadka caadiga lahaayeen dhowr boqol oo sano ka hor bay leeyihiin ilaa yacni taas wax laga beddelana waxa weye wax badan oo inoo hagaagayaa ma jiraan. hoggaanku waa inuu isbeddelaa, waa inuu la yimaadaa daacadnimo, waa inuu la yimaadaa cadaalad, waa inuu la yimaadaa dal jacayl, waa inuu la yimaadaa dadka inuu adeego. marka si kastoo wax loo wanaajiyo haddaan dadka mas-uuliyiinta ah oo maskaxda dadka u ah oo hoggaanka u ah aanay intaa la imaanin aysanna jirin in lagu aamino keliya maaha, waa inuu jiraa nidaam lagula xisaabtami karo oo bulshada hawsha u dhiibatay ay kula xisaabtami karaan. marka waxaan is leeyahay labadaa meelood weeye waxa ugu muhiimsan meeshu ka khaldan yihiin waa maskaxda oo khaldan iyo cid la xisaabtanta oo aan jirinin
waxaan rajaynayaa mustaqbalka soo socda inaynu dadka u bidhaamino sida waxyaalahaas wax looga qaban karo muddaba ha qaadatee hadalkayga intaasaan kusoo gaabinaya. Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu.